gudoomiyaha guddiga doorashadu waxa uu kaga hadlay habsami u socodka tirinta codadka iyo qaabka natiijada loogu dhawaaqayo. We have been receiving the final physical results from the IEBC returning officers across the country. So far, we have received waxa waliina soo gaaraya natiijooyinka asalka ah ee goobaha kala duwan ee dalka ee shacabku ay codadkooda ka dhiibteen. natiijooyinkayna soo gaaraya waxaa lagu samaynayaa hubin iyo weliba ogolaansho ay qoraal ku bixinayaan axsaabta iyo murashaxiinta. markaas kadib ayay guddigu ku dhawaaqi karaan natiijada. waxaa jira walaac shacabku ay ka qabaan dib u dhaca ku yimid natiijooyinka doorashada gaar ahaan tan madaxweynaha. gudoomiyaha oo arrintaasi ka jawaabayay ayaa ugu baaqay shacabka inay deganaansho muujiyaan maadaama guddigu uu ka shaqaynayo in natiijooyin sax ah uu u soo gudbiyo shacabka weliba sida ugu dhaqsiyaha badan. The commission wishes to assure the parties, the candidates, in particular the presidential candidates and their agents. guddigu waxa uu xaqiijinayaa axsaabta murashaxiinta gaar ahaan musharaxiinta doorashada madaxweynaha wakiiladooda iyo taageerayaashooda in guddigu uu u soo gudbin doono natiijooyin sax ah isla marka aan wakiilada guddiga doorashada ka helno natiijooyinka oo la hubiyey oo axsaabta iyo murashaxiintu ay isku raaceen. waxaa kale oo mudane Isaaq Xasan uu u ballan qaaday shacabka in waxqabadkooda ay ku salayn doonaan cadaalad isla markaana ay ka dhowrsoonaan doonaan wax allaala iyo wixii dib u keeni kara doorashada. gudoomiyaha guddiga doorashada Axmed Isaaq Xasan shirkaas jaraa'id oo ku qabtay magaalada Nairobi waxa inuu soo koobay Xuseen Baraadan. dhinaca kale waqooyi bari ee Kenya waxaa lagu dhawaaqay natiijooyin dhinaca kuraasta sanadka deegaanka iyo kuwa kale. Ibrahim Xasan Dandure stuudiyaha ugu heliyay ayaa qadka telefoonka kula xiriiray wariyaha iyaga ee magaalada Gaarisa Maxamed Faarax Shire oo arrintaasi uu ka waraystay. muddadan waxaa gobolka soo gabagabeeyay oo la soo afmeeray tirada mudanayaasha xukumi doonto deegaanada kala duwan ee gobolkani waqooyi bari oo noqonaya ilaa iyo 3 county. senatorka kursiga deegaanka Mandera waxaa ku guuleystay Bilow Aadan Kerow oo mudana ka ahaan jiray bartamaha magaalada Mandera halka gobernatoraha countiga Mandera uu ku guuleystay Captain Ali Robo. waxaa jira oo kale oo dastuurkan iminka dalka loo sameeyay fasaxaya kaalin hablaha ay leeyihiin ama haweenka ay leeyihiin oo mudane baarlamaanka geli doono oo wadankani Kenya loo yaqaan women rights deegaanka Mandera. Fatxi Xaaji Maxbuub ayaa ku guuleysatay. waa gartay degmada Wajeer maxaad noogu sheegi kartaa Maxamed Faarax? isla degmada Wajeerna waa la soo gabagabeeyay Dandray waxaa ku guuleystay kursiga gobernatoraha ninka la yiraahdo Axmed Cabdullaahi Maxamed oo xisbiga ODM markaasi ka tirsanaa oo helay tiro gaaraysa ilaa 40,660. isla xisbiga ODM ayaa haddana wuxuu ku guuleystay senatorka deegaankaasi Wajeer oo helay ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cali Culow oo isaguna helay tiro gaaraysa 39,461 oo isla xisbigaasi ODM ka tirsan. kursiga hablaha ama dumarka deegaanka Wajeerna waxaa ku guuleysatay Fatima Geedi Cali oo iyaduna heshay tiro gaaraysa 27,425 iyaduna xisbiga ODM way dabcan kuraastii ugu muhiimsan ee ugu weyneed deegaankaasi waxaa qaatay xisbiga ODM halka deegaanka Manderana ay qaateen xisbiga loo yaqaano Jubilee. degmada Gaarisa ayaad haatan igala hadlaysaa yaa gudoomiyaha loo doortay Gaarisa maxaad si iga sheegi karaysaa xubnaha kale? nadiif jaamac aadan ayaa waxa uu ku guuleystay kursiga gobernatoraha countiga Gaarisa halka senatorka nadiif aadan jaamac wuxuu ka tirsan yahay xisbiga Code Raila Omolo Odinga ayuu ka tirsan yahay halka xisbiga Jubilee ay ku guuleysteen kursiga senatorka oo nin loo doortayna uu yahay Yusuf Xaaji wasiirkii hore wasaaradda gaashaandhigga dalka Kenya. kursiga hablaha ama dumarka waxaa sidoo kale ku guuleysatay isla xisbiga Code gabadha la yiraahdo Shukri Xuseen Guure ayaa ku guuleysatay. waxayna noqonaysaa inta badan gobolka aan moodo in dadka mutacalimiin oo wax garab ah ay soo galeen sanadkani. tiro yar ayaa kamid ah tiradii howlaha hore u soo hayay ama baarlamaanka dalka Kenya ka soo tirsanaa. waa marka kaliya Yusuf Xaaji iyo ninka la yiraahdo Yusuf Xaaji iyo ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Culow iyo Bilow Kerow moogi inta kale waa xubno ku cusub xilalkan iyo weliba nidaamkan cusub ee dawliga ee dalka Kenya laga dhisayo. Shire bal iga waran dareenka ama shucuurta dadka? Dandray shucuurta guud ahaan dadka gobolka waqooyi bari ku dhaqan aad iyo aad ay u degan tahay walow aad arki karto qofka haddii markaasi laga reeyo ama
muuqato oo xamaasad ay jirto. maxamed faarax iga waran xaaladda amniga Garissa iyo meelaha kale sida Wajeer iyo Mandera. wax qayridaan ah kama soo yeerin guud ahaan magaalada Garissa marka laga reebo hal qof oo gudaha magaalada Garissa maanta lagu dilay oo dabley ay ku toogteen halka hal qof oo kale oo ka tirsan ciidamada KBR loo yaqaan xerada qaxootiga Ifo lagu dilay kadibna shacabka deegaankaas oo kaashanayo shacabka qaxootiga oo kaashanayo ciidamada booliiska ay labada ninkii ka tirsan kaydka ciidamada booliiska ee lagu dilay xerada qaxootiga Ifo ay ka daba tageen oo labaduba ayaguna qodhay ka soo jareen ayagoo markaasi kaashanayo xisaab badan oo ay ciidamada booliiska ku furayeen dableydaasi baxsatay oo laga daba tagay. kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA uga soo warrama magaalada Garissa Maxamed Faarax Shire oo qadka telefoonka ugu warramayay Ibrahim Xasan Daandure oo stuudiyaha igu wehliya.